kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa caruur cudurka jadeecada ugu geeriyootay deegaano hoostaga magaalada Gaalkacyo, dhalinyaro ku guuleysatay inay ka hortagaan kiisas gudniinka gabdhaha ah kadib wacyigelin ay sameeyeen, iyo warbixin aan idinkaga hayno qoysaska danta yar oo ku qasbanaaday inay ka guuraan guryihii ay degganaayeen kadib markii ay kirada ku noqotay mid sare. aan ku bilownay qiyaasii in ka badan 2 milyan oo isugu jira gabdho iyo haween ku nool caalamka ayaa maray nooc ka mid ah gudniinka sida laga soo xigtay qaramada midoobay. Gudniinka ayaa sababi kara dhibaatooyin dhinaca jirka iyo maskaxdaba ah kuwaas oo saameyn ku yeelan kara aayaha dambe ee haweeneyda. Qaramada midoobay waxa ay dalbanaysaa in la joojiyo gudniinka, waxayna u asaysay maalinta dhammaadka dulqaadka gudniinka gabdhaha oo ku beegan 6 February, iyadoo dalkeenna uu ka mid yahay wadamada uu gudniinka sida xoogan uga jiro. Dr. Naciime Maxamed Cabdulle oo hormuud u ah dhalinyaro si iskooda isku abaabulay ayaa Muqdisho iyo duleedkeeda waxa ay ka wadaan in dadka ay ka wacyigeliyaan gudniinka gabdhaha iyaga oo ku guuleystay inay joojiyaan kiisas la xiriira gudniinka kadib markii ay fahansiiyeen dhibaatada uu leeyahay waalidiinta dhalay gabdhaha. Dr. Naciime ayaan marka hore weydiiyey waxa uu yahay gudniinka gabdhaha iyo sababta loo sameeyo. aad u mahadsantahay walaalkay Qaali Axmed, waxaan u mahadcelinayaa Sooma. run ahaantii gudniinku waa eri afqalaad ahaan loo dhaho FGM, kaasoo si ula kac ah ama loo jaro xubin ka mid ah xubnaha muhiimka ah taranka haweenka Soomaaliyeed. sababta gabdhaha loo gudana dadka waxay usoo sababayaan in gabadhan xoogaa dareenkeeda lagu yareynaya si maaragtay ula kacan loo jaro xubnaha muhiimka waa gabadha jirkeeda, iyadoo laisku dayay in la xakameeyo qaar ka mid ah ama qaarkii ugu muhiimsanaa dareenkeeda gabadha. waayahay, manala wadaagi kartaa marka dhibaatooyinka ay gabdhuhu ka dhaxli karaan gudniinka? Axmedow walaal, sidoo kale way jiraan dhibaatooyin tiro badan oo aan ka dhaxalno ama ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga gabdhaha. maxaa yeelay maadaama gabadhan xuman aad jirkeeda u muhiimsan laga jaraya, waxay la kulmaysaa dhibaatooyin aad iyo aad u badan kuwaasoo sababi karo in gabadhan oo caadadii dhibto, inay gabadhii dhibto gogolsha ay ninkeeda la sameynayso inay dhibto, waxyaabo tiro badan ay gabadha u nuglaanaysaa sababtoo ah maadaama jirkeedii la jarjaray. dadka qaar waa la tolay, gabadhan la tolay. dhibaatooyinka ugu badan ee wajahayso waa dhabar xanuun, waa keliya xanuun, waa xilliga caadada la gaaro gabadha si ay u xanuunsato. dhibaatada ugu badan ee ay maanta la kulmaan ayaaba ah in gabadhaas xanuunada tirada badan ay dareento. sidaas daraadeed waxaan dhihi karaa xanuuno ka waaweyn oo dhaxlan way jirtaa. haba ugu badnaadaana inuu dhiigga ku adkaado, inay gabadhan dareemaheedii cuslaadaan, inay dhabar xanuun imaado, inay infekshanka xataa u nuglaato. qowmiyadaha caafimaadkana walow ay sababo tiro badan intaas ay kusii sheegeen, laakiin dhibaatooyinka ugu badan intaas ayaan dhihi karaa aniga. waa gartay. inta aad wadeen ololaha ka hortagga gudniinka gabdhaha, ma jiraan kiisas aad ku guuleysateen oo ah inaad gabdha ka badbaadisaan gudniinka? haddiise ay jiraan, imisa ayay gaarayaan? wax badan waan ku guuleysanay, ilaahay wuu nala garab galay. sidoo kale waxaan dhihi karaa weli laguma guuleysanin, kiisas badan oo aan ku guuldaraysan waan aragnay. waxa ugu mudan maamadan markaad leedahay inaad tiro hooyo waxaan sameey, inay qalad ku aragto. ileenay inta ugu badan marka la sameynaya kiisaskan waxa ugu badan oo laga wacyigeliyo waa maamooyinka. I believe inay wax walba hagaageen oo aan ku guuleysanay, kiisas badan oo ku guuleysanay oo ay darteen wax nooga hagaageen way jiraan. mararka qaar
waxaa dhacda dadka marka ay howlaha noocan oo kale ah ay wadaan in caqabado ay soo wajahaan. maxaa caqabad ah oo aad adiga iyo kooxdaada aad la kulanteen oo bulshada idinkaga yimid hawshan wacyigelinta ah inta aad ku guda jirteen? inta aan wacyigelintaas ku guda jirnay wax badan waa la kulanay. maamaha waxaa laga yaabaa markaad wixii wada sheegto ilaa wixii la wacyigelinaya waa hooyooyin, markaad tiri hooy saanay wax u jiraan tiro oo arrinkii aad kala hadasha, qaar baa laga yaabaa inay xitaa xagga diinta wax u fahansaneen oo ay kugu soo afceliyaan ay ku dhahaan annaga waa nala soo gudayo wixii horteen jirin waa la gudi jiray, waxa hadda naga dhaadhicinaysa maxay tahay? waa hadalkii adiga ay hadalkaaga qaadan waayaan ay dib kugu soo celiyaan oo hadalkii wax iyaga ka dhaadhici waayo uu noqdo. inta ugu badan caqabadaha aan la kulana waxay tahay waxay maamooyinka horey u aaminsanaan jireen, laakiin aan rajaynaya hadda kadib inayna dib u dhicin. ma is leedahay waa lagu guuleysan karaa in la joojiyo gudniinka gabdhaha haddii lasii wado in bulshada loo sheego dhibaatooyinka aakhirka dambe ay haweeneydu ka dhaxli karto gudniinka? mahadsanid walaal qaali axmed. kolley aniga ahaan waxaan isleeyahay waa lagu guuleysan karaa. haddaba dadka sidii hore ma ahan, waa la ilbaxay, waa jaahilnimadii baa laga baxay, qur-aankii baa la fahmay, diintii baa la fahmay, aqoontii baa badatay, cilmigiyaa faafay. marka waa laga gudbi karaa, ma dhihi karo 100% waa laga gudbi karaa, laakiin ani ahaan waxaan aaminsanahay 80% ina sidii maamooyinka waagii hore ay ahaan jireen hadda ay ahayn. waayahay Naciima, waxaan soo gaarnay gabagabada waraysigeena. maxay tahay taladaada ugu dambeysa oo aada u soo jeedin lahayd waalidiinta Soomaaliyeed si ugu yaraan loo yareeyo ama loo joojiyo gudniinka gabdhaha oo dalkeena uu ka mid yahay dalalka uu ku badan yahay? waxaan rajaynayaa bulshada inay nagala qayb qaadato. talada aan sii lahayn waxay tahay hala wada joojiyo oo sida aan u ciribtiri lahayn gudniinka aan kabaha u gashino si aan howl iyo hadafkeenu isku meel ay u noqdaan. aad baa umahadsantahay walaal qaali. Doresa, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo sida aad u aqbashay inaan waraysiga kula yeelano. deegaano hoosaga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa ka jira cudurka jadeecada oo 100 qof loogu jiifiyey isbitaalka guud ee magaaladaasi. caruurta ka yar da'da 15 sano ayaa ah kuwa ugu badan ee ku dhacay xanuunkan, iyadoo la soo warinayo in qaarkood ay u geeriyoodeen. abaaraha ka jira gobolka, dadka oo aan helin biyo nadiif ah, iyo wacyigelinta tallaalka jadeecada oo aan sidii loo baahnaa u gaarin dadka reer miyiga ah ayaa sabab u noqotay inay bataan kiisaska cudurkan bilihii lasoo dhaafay. waxaa jira walaac ah inay sii kororto tirada xanuunkan uu asiibayo, taas oo loo weyn karo meel isbitaalka laga jiifiyo dadka, maadaama tirada hadda uu soo ritay ay aada u badan yihiin. mahad macalin abshir oo ku sugan Gaalkacyo ayaa ku eegaya warbixintan. 1300 oo qof oo u badan caruur daadoodu u dhaxayso 4 ilaa 14 jir ayaa tan iyo bishii Julaay ee sanadkii 2021 la dhigay isbitaalka guud ee koonfurta magaalada Gaalkacyo kadib markii uu ku dhacay cudurka jadeecada, sida ay Soomo u sheegeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka, iyadoo toddobaadkii aynu soo dhaafnay kaliya la jiifiyay dad gaaraya 104 qof. Farxiya Cabdi Guuleed waxay keentay isbitaalka 3 wiil oo ay dhashay oo 2 ka mid ah ay jadeecadu ku dhacday bishii Janaayo ee sanadkan, halka midka kalena ay ku aragtay bishii Diseembar oo ay 2 xilli oo kala duwan ay isbitaalka uga timid xaafadda Garsoor ee Gaalkacyo. waxa ay sheegtay in mid ka mid ah 3deeda wiil oo aad u darsaday ilaa uu gaaro in lagu xiro oksijiin muddo 24 saac, waana wiilka kaliya ee hadda ugu jira isbitaalka maadaama loo sheegay in wiilasha kale ay u caafimaad qabaan. waxay tilmaantay in markii hore caruurta mid ka mid ah ay ku aragtay qufac ayna moodo hargab maadaama aysan horay uga dhicin caruurteeda jadeecada, ay xaaladoodu ka sii dartay markaasna isbitaalka ay keentay loona sheegay in jadeeco qabaan.
xilligaas oo ay dareentay walwal xoogan. waxa ay Farxiya dareensan tahay in wacyigelinta xanuunka jadeecada haddii ay heli lahayd aysan mari lahayn dhibaatada ay ku aragtay carruurteeda, iyadoo hadda rajaynaysa inay tallaalka siiso carruurta kale ee aan weli u qaadan si ay u badbaadiso. waxaan u imid meeshaan cudurka la yiraahdo jadeeco 3 ciyaal ayaan keensaday. 3 ciyaalka mid waa ii biskooday, labana waa ii jiiftaa, gaar ahaan midaan naqasiiga dhigay. isjiinba 24 saac igu xirnaay. hadda xaaladooda waa fiican tahay. wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo isbitaalka guud ee Koonfurta Gaalkacyo ayaa iska kaashanaya wacyigelinta qaadashada tallaalka jadeecada oo ay bilaabeen qaybintiisa Diseembar ee sanadkii hore maadaama ay arkeen baahida loo qabo. Dr. Cabdimahad Maxamuud Diiriye oo ka howlgala isbitaalka guud ee Koonfurta Gaalkacyo gaar ahaan qaybta jadeecada ayaa sheegay in dadka la keeno ay isugu jiraan da' walba, balse ay ugu badan yihiin carruurta da'doodu ka hooseyso 5 sano oo boqolkiiba 80 ka ah bukaanada. waxa uu intaasi ku daray in sababta cudurkan u dilaacay waqtigaani ay qayb ka tahay dadka deegaanada oo aan biyo nadiif ah helin xilliga xagaaga. waxa uu tilmaamay in carruurta qaatay tallaalka jadeecada ay ka halis yar yihiin kuwa aan qaadan marka uu xanuunku haleelo, isla markaasna kiisaska qaarkood ay yihiin kuwa culus. Dr. Cabdimahad waxa uu xusay in dadka deegaanka aysan weli aad u gaarin wacyigelinta qaadashada tallaalka jadeecada, taasoo badisay 7 bilood ee la soo dhaafay. waxa uu Soomo u sheegay in isbitaalka uu daboolay baahida bukaanada hadda, laakiin ay walaac xoogan ka qabaan halkii ay jiifin lahaayeen haddii isbitaalka la keeno kiisas kale, maadaama ay buuxdo qaybta loogu talagalay dadkan. waxa uu sidoo kale Dr. Cabdimahad sheegay in isbitaalka ay ku geeriyoodeen 2 wiil oo da'doodu ka hooseyso 5 sano 3 bilood ee la soo dhaafay. waxaan filayaa inay around 2 case inay ahaayeen oo labadaba ay mail ahaayeen. midkii ugu dambeysay oo hadeertaan oo bishii oo 11aad oo ahaa labadaas qof kaliya oo labadaba rag ah oo caruur ah oo 5 sano ka yar ah ayaa ilaa hadeertaan aan xaqiijin karnaa. Kulana Cabdi Maxamed oo 2 carruur ah oo uu dhalay oo da'doodu u dhaxayso 1 ilaa 3 sano jir iyo hooyadood keenay isbitaalka guud ee Koonfurta Gaalkacyo ayaa sheegay in muddo ku dhow 20 bari oo isbitaalka kula jiray ay hadda yihiin xaaladoodu mid wanaagsan sida loo sheegay. waxa uu tilmaamay in muddo 2 maalin ah oo uu wadada ku soo jiray ka hor inta uusan soo gaarin isbitaalka uuna ka yimid deegaanka Qaydaro oo qiyaastii 120 kilomitir dhanka koonfur bari ka jirta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxa uu xusay in intii safarka uu soo ahaa uu ka quustay wiilkiisa 1 sano jirka ah maadaama uu xaalad adag ku sugnaa. Kulana ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad badan oo la deganaa oo carruurtooda sidaan oo kale ugu dhacday jadeecada, kuwaasi oo qaarkood la geeyay farmashiyaasha tuulooyinka u dhow halkaasi, isagoo aad uga walwalsan xaaladda ay ku sugan yihiin, balse uu wacay una sheegay in carruurtooda ay hayso jadeeco. markii jirada aan ku arkay sida ugu dhaqsiyaha badan waa ka taxadaro kiifiyobaana waxaan meel gaar ah geeyay, labadaana meel gaar ah geeyay, bacdigeedna waan soo qaaday oo waxa weeye gaari baan u raadiyay in geed iyo dilaa ku runayo oo howlgal sidii baan ku soo qaaday. Mahad Abshir warsame barnaamijka Wadaagga Gaalkacyo. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. qoysaskii danta yaraa ee ku noolaa degmooyinka dhacabartamaha Muqdisho ayay saameyn xoogan ku yeelatay kadib markii ay qaali noqotay guryihii ay deganaayeen. waxa ay iska bixin waayeen lacagaha kirada oo aad u batay, taas oo keentay inay markii dambe u guuraan daafaha magaalada. walaaca ugu badan hadda waxa ay ka muujinayaan halkii ay ka shaqaysan jireen oo ay aad uga dheeraadeen, maadaama waqti badan uu hadda kaga lumayo waddada, sidoo kalena waxaa hakad ku yimid waxbarashada carruurtooda. qaarkood waxa ay tilmaameen in ay hayaan dhowr shaqo oo kala duwan si ay u soo saaraan lacagaha looga rabo kirada guryaha ay ku jiraan iyo masruufka reerka, maadaama lagu kordhiyey ku dhowaad 2 laab lacagii horay ay uga bixin jireen kirada.
Shukri Caabi oo Muqdisho joogta ayaa soo jeedinaysa warbixin ka hadlaysa. Qoysaska danta yar ee ku nool Muqdisho ayaa ah kuwa wajahaya xilligan caqabado ku aadan qaaliyowga guryaha kirada ah ee degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo qaarkoodna ay ka guureen degmooyinkii ay deganaayeen kadib markii ay awoodi waayeen lacagaha kirada ah ee guryaha lagu kireeyo oo aad u badan. Cabdiqaadir Xaashi Cilmi oo kamid ah dadka nolol maalmeedka qoyskooda ka soo saara gacanada dadka raashinka iyo alaabaha kale loogu qaado ayaa Soomo u sheegay in ku dhawaad 3 bil uu degan yahay deegaanka Garisbaale ee duleedka Muqdisho halkaas uu ka helay meel banaan ah oo qayb kamid ah ay degan yihiin qoysas soo barakacay kadibna uu ku dhisay 3 buush markii uu bixin waayay kirada guri uu ka deganaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waxa uu markii hore ku deganaa 2 qol oo kamid ah $25 balse qoyskii lahaa gurigaasi ayaa u sheegay in bishii November ee sanadkii tagay 2021 in kirada guriga laga dhigay $50 qolkiiba taasoo ku qasabtay inuu ka guuro. waxauna xusay in nolosha caruurtiisu uu ku biilo lacagta uu ka helo alaabaha uu u qaado dadka wax ka iibsada baqaarada oo uu maalintii ka heli jiray $5 ilaa $7. Cabdiqaadir hadda waxa uu walaac ka muujinayaa degmadii uu ka shaqaysan jiray oo uu ka soo dheeraaday iyo waxbarashada caruurtiisa oo hakad gashay maadaama iskuul lacag la'aan ah oo dowladda ay leedahay ay u dhigan jireen 3 caruur ah. Waxa uu tilmaamay in subaxii hore intuusan waaga si fiican u baryin uu soo tooso si uu soo gaaro suuqa bakaaraha uu ka shaqaysto maadaama ay noloshooda ay ku xiran tahay wixii uu soo shaqaysto maalintaasi. bac iyo awlaax hadii laga tirnila xoogaa ceymaha maan bac awlaax waxa waaye haddana 4 bilood kadib hadda 4 bilood culays anaga celiin maan guryaha qaarkood waa naga dudumeen dad waxa jiro oo hadda wax ku nool si oo hadda ninkii dadaalo gurigiisa dhinac ka ishtimaahayna kii kale masmaarta awlaax waa jaba. Dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha isbeddelka nolosha deegaanka ayaa aaminsan in badnaanshaha lacagaha lagu kireeyo guryaha xilligan ay noqotay mid badan ay tahay isbeddelka dalka ka jira ee doorashooyinka iyo xayiraadaha dunida ee ka soo kabanayso ee ganacsiga waliba isku socodka ee COVID-19 uu sababay taasoo keentay inay yaraadaan badeecooyinka la keeni jiray. Maxamed Macalin Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha ayaa Soomo u sheegay inay saameyn badan ku yeelan karto nolosha qoysas badan oo danyar ah inay kororto lacagaha lagu kireeyo guryaha maadaama aysan kaafin karin shaqooyinka ay qabtaan taasina ay ku qasbayso inay u guuraan deegaanada ka baxsan magaalada. Waxa uu tilmaamay in taasi ay ka dhalatay in sare u kaca maciishada iyo waliba sheeyada nolosha daruuriga u ah oo xilligan ah kuwa qiimahooda uu kordhay sidoo kalena qalabka dhismaha uu yahay mid qiimihiisu uu yahay mid sareeyo qofka guriga kireynaya laga yaabana in nolosha qoyskiisu uu ka dabaro lacagaha uu ka helo dadka uu ka kireeyo guriga. taas iyada ana waxa sababay dadka oo magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo farabatay iskuulaadkii iyo jaamacadihii oo magaalada ku badan marka qof kasta oo gobolada jiray waxbarasho soo doonaya xamar buu soo doonaynayaa sidaas la mid ah dadka nolosha fiican raadinayna xamar ay u soo doonayaan guriyihii iyo dadka waxa badan dadkii guriyihiina waxa weeyaan waxay markaas u imaanaya codsiyo dad fara badan oo kala duwan oo u baahan inay kiristaan milkiilayaasha taas marka waxay fursad u siisay in qiimihii ay aad u sareysiyaan iyagoo halkaas iyada ka faa'iideysanaya baahida dadka shacabka ee Soomaaliyeed. degmooyinka Waaberi, Xamar Jajab, Cabdicasiis, Shibis, Shangaani, Boodheere, Xamarweyne iyo qaybo kamid ah Hodan iyo Warta Nabadda ayaa ah kirada guryaha ku yaala mid sare oo ku xiran nuuca guriga hadba jiingad iyo dhagax waxa uu yahay taasoo ku adkaanaysa inay sii deganaadaan dadka danta yar ee markii hore ku noolaa halkaa. Muniire Axmedey waa hooyada 3 caruur ah oo agoon ah waxay ka shaqeysaa maalintii inay wadooyinka Muqdisho ay ku iibiso qumbaha, sisinta, kashaatada iyo macmacaanka kale ee dadku ay cunaan. Lacagaha ay ka hesho maalintii oo gaaraya ilaa $5 ay ku biishaa nolosha caruurteeda iyo waxbarashadooda. Kirada guriga ay ka degan tahay xaafadda Unisheef ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir.
shaqadan ayay sheegtay inay bilowday kadib markii ninkeedu uu ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxii 14 Oktoobar ee 2017 xilligaa wixii ka dambeeyana ay dusha saaratay mas'uuliyadda caruurteeda oo hadda 2 ka mid ah ay dugsi quraan u dhigtaan. Waxay tilmaamtay inay hadda ku qasban tahay inay raadiso shaqooyin kale si ay u hesho lacag ay ku bixiso kirada halka qol ay degan tahay maadaama lacagta guriga qoyskii lahaa ay ka dhigeen $50 halka markii hore uu ahaa $30 qolkiiba. maalintii adii $6 camal aan ka helay $6 guriyaasha $30 oo deganeen sodonkii $6 markaan aan ka helo waxna ilmaha dugsi oo u dhigtaa waxna $2 ama $3 waxa uu dhigay ijaarka $3 ama $2 da isoo yarta nolol maalmeedkii maalintii aan ka dhiganay waxay dantii uu kala fiishay shaqo kale in meelaha ka raadsado. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee lagu joojin karaa gudniinka gabdhaha oo saameyn ku yeelan kara aayaha dambe haweeneyda. nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacadan. mahadsanidin.